السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداشان قالك قصد أو دعم فرن وحمد عصر إلى سبسكرايب سبسكرايب جنال كينا هاليوم وعملت بس عطانا على هذا إنسان كل قدر أيضا هذا ما أنت تبقى صار هذا ما ضحك بدون ما حنا عندنا عبيد وحنا نسوق بدون ما نشبههم ونحس جديا هذا دمك فان كان فريمين تأثر العالم كأبوين تفرقين تنسها هذا وحنا دي وحي فرق وشغله يوم حياة فربان وعليك إذا حس جديا شيخون حيصله قبل يوم حياة فربان سبنتا سبحانه أدي أدي ناسين سبسكرايب مسار جميل كنا قصر هذا برامج كنا بأكتر كذا ما أنت بخاص بخاطر دونا أكتر أدور haddaba daawadayaal ina keena aynu bilaawna safarkeena maanta aanu ku baro doono akhtarada caalamka mid ka mid ah waa kuma akhtarkaasi iyo wadanku uu dhashay magaciisa iyo magacana u naqaano iyo weliba taxanaha uu caanka ku noqday intaba kala soo barnaamijkeenan waa kuma akhtarkan maanta soo qaadan doono waa akhtar aad u daayar ee Soomaalidana aad u naqaano baraha bulshadana aad u qabsaday bilihii ugu dambeeyay waa actorkaas waxaa lagu magacaabaa Khalid Uskursari Soomaalidana waxay u taqaanaa Khadir waa kuma Khadir haddaba marka xasuusatay Khadir ama magacaas Khadir aad maqashid waxa u maleynayaa inaad u maleysid inaad aad u taqaan sida idoo kaleeto haddaba waa kuma Khadir soo dhawaada in wada barano Khadir waxa weeyaan wuxuu ku caan bahay uu caan ku noqday oo adduunka uu qabsaday oo adduunka kaga qayliyay wuxuu ahaa waa kumaday wuxuu ahaa musalsalkiisii ama taxanihii ugu dambeeyay la magac baxay walaalaha ama Kardasleemiye oo macnaheedu tahay walaalaha ama walaaladeyda musalsalkii walaalaha wuxuu noqday filimkii ugu taageerada badnaa wadankaasi Turkiga iyo waliba caalamka waana filimkii ugu murugada badnaa oo uu qof walba la ilmeeyay waliba saameyn badan uu ku yeeshay aniga ayaa kamid ah dadka la ilmeeyay filimkaas waxa uu maleynayaa ama musalsalkaas adigana inaa kamid tahay dadkii la ilmeeyay haddaba waa kuma aan wadano barashadayna filimka ugu murugada badnaa kaas ayuu ahaa aynu soo laabana Khalid ama Khadir waa kuma actorkan daada yar xagoo ka soo jeeda imisa ayuu jiraa muxuu sameyn jiray ka hor intuusan soo gelin jiritaanka ama musalsalada intuusan ku soo biirin ka hor muxuu sameyn jiray aynu wax ka barano haddaba Khalid waxa uu dhashay October 4 October 1993 waa 28 jir waa actor wax ka jila filimada riwaayadaha musalsalada TV-yada iyo dalkaasi Turkiga waana model wuxuuna ku dhashay Istanbul wuxuuna ka qalin jabiyay jaamacadda lagu magacaabo jaamacadda caanka ee dalka Istanbul oo lagu magacaabo Istanbul Bilgi University wuxuuna ka qalin jabiyay qaybta dhaqaalaha haddaba Khalid markii uu inta uusan bilaabin jaamacadda ka hor dugsigiisa sare ayuu ku soo biiray wax jilitaanka ama dugsigiisa ayuu wax ka jili jiray sidaas ayuu ku ogaaday inuu yahay actor ama uu noqon karo qof wax jili karo sidaas ayuu u jeclaaday inuu jilitaanka ku soo biiro Khalid wuxuu ahaa model sidoo kale wuxuu ku bilaabay dugsigiisa iyo jaamacadiisa kadibna wuxuu u noqday wajiyo cusub oo uu model gareeyay ama uu xayeysiin jiray shirkadaha caan ah oo wadankaasi Turkiga oo dharka xayeysiya ama dharka uu soo saari jiray Khalid wuxuu ku soo biilay saaxada oo actornimada ama jiritaanka musalsalada 2018 markay ahayd ayuu bilaabay inuu wax jilo musalsalka ama taxanaha TV-ga taxanaha ugu horeeyayna wuxuu u jiray TV lagu magacaabo TRT1 musalsalkaas ama taxanahaasna wuxuu noqday mid guuleystay oo Khalid ku helay shacbiyad ama taageerayaal fara badan wuxuuna taxanahayaal badan u sameeyay TV fara badan oo dalkaasi kamid ah iyo waliba Netflix oo u jiray maxaa la dhahaa series ama taxane sanadku markuu ahaa 2018 wuxuu noqday actor ama wuxuu jiray filmo badan oo halkan aan ku soo koobi karin inkastoo aan jeclayn inaan si aad u faahfaahino Khalid sidoo kale saaxiib ma leeyahay
waxaa lagu xantaa inuu saaxiib leeyahay aktarada da-da yar oo weliba aniga aada u jeclahay maalina aan ooga sheekeyn doono taariikh nololeedkeeda Ilyada oo lagu magacaabo Ilayda Alisaan inuu ka dhexeeyo xiriir jacayl ayaa la isku xantaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal subscribe noo saara la qaybso asxaabtaada waxaan la socon doontaa maalmahan soo xigo aktaro saameyn ku leh dalkaas iyo dalkeena iyo waliba caalamka iyo sheekooyin fara badan oo idin xiiso geli doono aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin gacan furan ku soo dhawaada waxaan rajeynayaa adinkana inaad na soo dhaweyn doontiin aad ayaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh